بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكي نجرة محمد عالم واتكبر انتين بيج كيسة جمعة والبيرانيين فلقيو مرحلة سياسة دالكا حق النقالة حق النورلات حق دلع كستوى marka ra'yiga waa ra'yi aniga ugu kooban wixii aan ku gafo ama aan sameeyno waa aniga shaydaan ilaahayna waxaan barayaa markasta ilaahay waqaatumadii hagaajiyo maalinta adduunyada mataqaanaa waa maalmo kooban maalinta aakhira ayaa dheer marka sida aan doonayo inaan falanqaynta ku bilaabo waxaad la socotiin dalkeena waxaa raad mataqaanaa dhibaato dheer oo dagaal sokeeya ah dadka Soomaaliyeedna mataqaanaa markasta negative baa ka batay maadaama ay colaad arkeen gaajo arkeen dhinac nolosha dhinac kasta ay ka dhibaatoobeen marka arrimaheeni doorashadu murugay gashay 8 April maalmaha naga xiga madaxweyne xilka dhamaaday mudan maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha hore sharafta lahaa aqligiisii iyo maskaxdiisii waxaan ilaahay u baryaynaa ilaahay inuu wanaag ku beero maadaama negative ka ay tahay oo ah inuu xilkii jeclaystay xilka jeclaysiishadiisuna wax macna ma laha haweeney mataqaanaa dad badan oo taageerayaashiisa ah ayaan jimco kasta fariin u soo diraa maxaa dhacayne dalku wuxuu u baahan yahay in deganaansho siyaasadeed la muujiyo dad badan baa yiraahdaa war ninkan qaraabatiin maxaad ka rabtaa waxaan ku qaraabadu waa nasteexada ninkan maanta dadka ehelkiisa ah ayaa qaban kara waa sunne waa arrin diini ah waxa weeye madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo in maskaxdiisu qaldantay waxaad ku ogaan kartiin gobolka Banaadir uu dhiibtay uu magacaabo maxkamadda sare uu dhiibtay arrinta doorashada sidee uu arkaa guddiga doorashada iyo maamula arrimaha amniga iyo siyaasadda dalku waa sidee qaabkee ayuu dalku u socdaa dadka ehelkiisa ah heshiisku galiyay Cabdirajaran muxuu u galin way ehelka Jubbaland oo dhan muxuu gada u tagi laayay muxuu kismay u tagi laayay muxuu maqaamka xamar iyo dadka degan iyo madaxweynayaashii hore uga dhaadhicin yahay fikir wanaagsan maxaa keenay inuu la taliyaal u yiraahdo la taliyaha doorashada Cabdi Cali Raagi waan garanayna backgroundkiisa maxaa keenay kuwa kale meesha jooga xukuumadii reer wasaare Maxamed Xuseen muxuu soo magacaabay inuu gacmaha ka xiro soo magacaabay marka waxa weeye doodan aan ka hadlayaa waa dood nasteexa ah waxayna ku socotaa waddanku doorashada uu galay waa doorasho qabiil waa doorasho qabiyaaladeed waa doorasho mataqaanaa aan dastuur lahayn waa doorasho aan deganaansho siyaasadeed lahayn waa doorasho aan ciidan amni lahayn waa doorasho aan sharci siyaasadeed lahayn marka waxa weeye dadkeena Soomaaliyeed ee wax garadka aqoonta leh waa in la isku nasteexeeyaa qofka adigoo caayin oo aflagaadeen ayaa dhihi kartaa war madaxweyne ummadda la hadal hadda xilkiisa wuxuu mandate xilkiisa 2 bilood isticmaasha ka dhiman maad bish waa labo marka waxa weeye 8 cisho waxa weeye 6 cisho madaxweynuhu kadib ummadda la muusan hadlin idaacaddan la muusan hadlin marka uu madaxweynuhu yahay 4 sano ka hor ama 5 sano ka hor markuu lobbyka siyaasadda diyaarinayay soo ma ahayn inuu mataqaanaa idaacadaha ka hadlayay inuu sheegay visionkiisa inuu sheegay waxa uu doonayo inuu sheegay wax uu qabanayo marka waxa weeye shirkan markii sharad uu iclaamiyay uu leeyahay sabta qabanaya waxba kama soo baxaya ilaa intuu ilaahay aqliga ku soo celinayo aqligu ka maqan yahay maankiisu uu xiran yahay aflagaadiga ma ayga ma waxa weeye maxamed Cabdullaahi Farmaajo nasteexada iyo deganaansho siyaasadeed baa lagu baahay maxaa dhacay isaga ayaa ah dastuuri xafiiskan qof kale ka bedelay ma jiro inta madaxweyne kale imanayo marka isaga ayaa laga rabaa inuu ummadii isku keeno inuu ummadii u samro inuu ummadii u dulqaato inuu ummadii rixinka xiriiriyo inuu ummadii mataqaana u jeclaysto anuu qoyaan ka la hadalaa dadka kritikrenayo yaa kala la hadla xasan sheekh muxuu haystaa waa muwaadin Soomaali madaxweynaha waa nin maanta xil musharax xil taag waa shakhsi caadi ah reer wasaare khayr muxuu haystaa reer wasaare waxa uu ka tagay institutionkii dalka dadkan Axmedow wax diidan war Axmedow Axmed diidan oo Siciidan ma diid anaka diidan aniga kula hadlay ee diidan in madaxweyne Farmaajo u dhaqmo inuu dalkan leeyahay taariikhda daaradu si fiican u taqaanay tii sayidka taqaan meesha ka dhacday tii maxamed siyaad bara taqaan meesha ka dhacday tii maxamed Cabdullaahi Farmaajo taqaan meesha ka dhacday hawii kacaan reerkan marna kuma faa'iideeya kacaanka waxa lagu faa'iidaa taariikhda qurux bandeeda Cabdirashaad Ali Sharmaake Allah u naxariistay bal ma dhageysteen istuudiyaasha
bal markuu khudbadu aadan yabaal ka jeediyey magaalada aadan yabaal may taqaanin xilliga doorashada la aaday ma maxamed ibraahim cigaal ma dhegeysteen khudbadiisa aan cadde ma dhegeysateen cabdullaahi ciise ma dhegeysateen dadkii dalkan usoo khudbadahooda iyo historygooda ma dhegeysateen waxa weeye qof faanaya oo digdig iyo bacbacay waxa weeye gabayada sayidkana waxaa ka dhacay waad maqlaysiin maalinba reer soomaaliyeed ayuu lahaa qoortaan ku jari oo waan ku dili oo waan ku baabiin allah ha u naxariistaan leena ee history colaadeed baa ka muuqatay allah ha u naxariistaan leena maxamed siyaad bar khudbadiisa akhrista hanjabaad afmishaar dibidhicis dibidil qurmis tuugo kacaanshiid afmishaar maxaa laga dhaxlay maxaa ka dambeeyey marka waxa weeye war maalmaha aakhiraa badan war waa in isku nasteexeeya war haddaad rijaal tahay ha biqin war haddaad nin sharaf tahay ha biqin waxa weye xaaraan wax ma tarayso lacag xaaraan lagu sii wax ma tarayso ra'yigaaga ayaa aniga aaba ina barsoon caalim waa aaba barsoon caalim soo dhan baa taqaan aabay wuxuu dhihi jiray qaab adeegsi ma doonayo isagoo professora ayla wasiir ma doonayo wasiir aan qof ammaano ma doonayo waa in shacabka anu wasiir iga dhigaan marka waxa weye tiiban ku dhimanaya anigu marka waxaan u sheegayaa markasta iin falanqeynaya waan mataqaanaa aan arrinta iin sheega waxa weye dowladnimadu waa sabr dowladnimadu waxa weye waa xishood dowladnimadu waxa weye in xaaraanta laga cararo dowladnimadu waxa weye ammaanada lagu dhibta soo celisaa maxamed cabdullaahi farmaajo ammaana u dhiban shirarkan uu sheegay waxna kama jiraan ilaa ummadda uu la hadlo oo uu tanaasulo oo khaladkiisa yeesho oo taliyaashan ciidanka ee beenta ah ciidamadan beenta ay baabaan markaa nimayo waxaa lay dadka falqeynta dhegeysto walaalayaal ummadda wanaageeda laga shaqeeyo qof kasta ummadda ha u nasteexayo qof kastoo ummaddan colaadeeda ka shaqeynin ha la istaajiyo dadka xamar amniga ka shaqeynaya waa in amniga puntland ka shaqeeyaan waa in amniga somaliland ka shaqeeyaan waa in amniga mex ka shaqeeyaan dalkeenu qallaasa xun buu ku jiraa marxalad adag ku jiraa xilli adag baan ku jiraa marka anu falaqeynta waxaan kusoo gabagabin waxa weeye haddaanu madaxweyne farmaajo ilaahay maskaxiisa aqal kusoo celin soomaaliya wax heshiisoo dhacayana ma jiro wax mataqaanaa waddo colaadeed baan gelina colaadna wax macnaa ma laha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidaa ay walaal jimco wanaagsan